asalaamu calaykum. dad badan oo ila soo xidhiidha ayaa daneynaya inay wax badan ka ogaadaan arrimaha sirdoonka. qarnigan hadda la joogo, dalalka iyo dowladaha caalamka kuma tiirsana oo keliya cudud ciidan, mid dhaqaale, hogaamin hufan, horumar, heerka aqooneed iyo midka wax soo saar ee dalka iyo dadka. laakiin waxaa udubdhexaad u ah hay-adaha nabad sugidda iyo sirdoonka oo kaalin muhiima ka qaata arrimahan: ogaanshiyaha weerarada ka imaan kara dalka gudihiisa iyo dibadda, ilaalinta xogaha iyo sirta gaarka ee waddanka, ka hortegidda iyo gacan ku-dhigidda basaasiinta shisheeye, ogaanshiyaha cadowga qarsoon, soo ururinta siraha iyo siyaasadda ee cadowga tooska ah, fulinta howlgallada halista ah. sidaa daraaddeed waxaa la odhan karaa sirdoonku waxa uu xilkooda uu yahay raadinta, soo ururinta iyo soo gudbinta siraha qarsoon si loo xoojiyo xiriirka, danaha, amniga iyo ammaanka waddanka uu leeyahay. ciidanka loo xusho ka mid noqonshada iyo ka qayb qaadashada waaxaha sirdoonka waxaa loo kala saaraa laba qaybood: qaybta u gaarkaa dalka gudihiisa oo usii kala baxda waaxo kala duwan, iyo qayb ku howlan sidii ay daboolka uga qaadi lahaayeen siraha qalaad ama siraha dibadda ee qarsoon. sidoo kalena waxay fuliyaan shirqoollo loo baahan yahay, waxaana loogu magacdaraa basaasiin. waa maxay basaas? basaas waa ereyga loogu yeero ruuxa sida shakhsiga ah u dabagala arrimaha gaarka ee qof uu leeyahay, sida axsaabta, ehelka, qaraabada iyo qariibkaba. qofka ka tirsan ciidanka sirdoonka ee ka howlgala dalalka shisheeye, diin ahaan iyo dastuur ahaanba waa dembi adag basaasnimadu. balse waxaa jira xilli iyo xaalad la ogol yahay oo ah marka la basaasayo colka iyo cadowga ka soo horjeeda dalka iyo diinteenna. si uu qofka ugu biiro hay-ad sirdoon, waxaa looga baahan yahay inuu lahaado geesinimo iyo dhiiranaan, maskax furnaan, hal abuurnimo, aqoon heer jaamacadeed, wadaniyad iyo waddan jacayl, xirfado uu ku shaqeeyo marka loo diro dowladaha iyo dalalka kale sida sawirqaade, saxaafad, darawal, makaanig iyo mihnado kale oo aan laga shakinaynin. sidoo kalena waa inuu ugu yaraan uu ku hadlaa 2 ama 3 luqadood oo qalaad. intaa kadib waxaa la marinayaa baaritaan caafimaad. haddii uu ka gudbana waxaa loo bilaabaa tababar. haddaba siduu u shaqeeyaa sirdoonka caalamka? intii ka dambaysay dagaalweynayaashii koowaad iyo kii labaad ee dunida, waxaa dunida oo dhan aad ugu xoogeystay howlgallada basaasnimada iyo shirqoolada lagu qaarijinaya madaxda. adduunkanna waxaa si qarsoodi ah ugu tartamaya uguna diriraya ciidamada sirdoonka ee ka tirsan dowladaha iyo dalalka kale ee kuwa quudaha leh ee dunida, waxaana sabab looga dhigaa dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad ee dunida, dagaalkii qaboobaa, dagaalkii dowladaha carbeed iyo yuhuudda, dagaalkii vietnam iyo soo bixitaankii mintidiinta. waxaa kaloo loo sababeeyaa dagaalada sirdoonnada u dhexeeya dagaalkii soofiyed iyo afghanistan, xasuuqii siyaasadeed, colaadda kashmiir, dagaalkii ciraaq, raadintii osama bin laden iyo arrimo kale oo dhowra. si kastaba ha loo sababeeya, waxaa jira hay-ado sirdoon oo ka sheegan dunida inteeda kale, waxaana ka mid a ISI waa bakistan. hay-addan sirdoon waxaa la aasaasay sanadkii 1948. xarunteeda dhexe waxa ay ku taallaa magaalada caasimadda ah ee islaamabad. SIS hay-addaasi sirdoon waa hay-ad sirdoon oo caalami ah, waxaana lagu ammaanaa howlihii cuslaa ee ay qabatay wakhtigii midowda soofiyeti gudaha uu galay waddanka afghanistan, samayntii hubka nucleerka ee bakistan oo ka dhigtay gebi ahaanba mid aanay dunida ka warqabin samayntiisa, inkastoo lagu doodo in markii dambe ay ka warheshay hay-adda raw ee dalka indiya. waxaa kaloo lagu ammaanaa tabaha iyo farsamooyinka cajiibka ah ee ay ku howlgashay hay-addaasi. inkastoo weli aanay xal u helin daahka qaadidda weerarada daalibaan, waxaa lagu magacaabaa hay-adda sirdoon ee ugu xoogga iyo xeelada badan dunida. hay-adaha sirdoonka ee dalka bakistan waxaa kaloo ka mid ah MI, waxay sirdoon u tahay ciidamada milatariga, NI waa sirdoonka ciidamada badda, IB sirdoonka difaaca shacabka, iyo AI oo ah sirdoonka ciidanka cirka. hay-adda labaad ee dunida ka tilmaaman waa muusaad. waxaa la aasaasay sanadkii 1949. waxaa laga maamulaa magaalada talaaviib ee caasimadda maamulka yahuudda israa'iil. muusaad hay-adda la yidhaahda ee sirdoonka israa'iil waxay ka mid ahay sirdoonka adduunka ugu sharkaya shirqoolka badan, waxaanay caan ku tahay qaarijinta iyo aargudashada. muusaad iyo dalalkii ay fulisay aan eegno. sanadkii 1960 muusaad waxaa dalka argentiin ay ka soo afduubatay nin ka tirsanaa hoggaankii sare ee naaziga jarmalka, kaas oo dhuumasho ku joogay dalkaasi. magaciisa wuxuu u bedelay richard kelemen, balse waxaa horey loogu yaqiina adolf eichmann. howlgalka waxaa fuliyey 5 ka mid a xubnaha ugu muhiimsan ee sirdoonka muusaad,
oo uu horkacaya nin lagu magacaabo shimon bin aharon adolfe. abduufkiisa kadib waxaa la geeyey israa'iil oo lagu daldalay. howlgalkii labaad ee ay fulisay ciidanka sirdoonka israa'iil waxaa ka mid ahaa sanadkii 1980kii waxay dileen yaxye almashad oo madax ka ahaa mashruucii hubka nucleerka ee ciraaq. sanadkii 1995tii waxay ka dambeeyeen dilkii faadi shikhaakhi oo ahaa hogaamiyihii jabhadda islaamiga ee falastiin. sanadkii 1988 muusaad waxay ka dambeeyeen dilkii ninkii lagu magacaabay khaliil al wasiir oo ahaa ninkii aasaasay ururka fatax ee ka howlgala falastiin. dilalkii ay u geysatay dadkii lagu tuhunsanaa weerarkii munikh oo ah dalka jarmalka ee lagu gumaaday ciyaartooydii israa'iil ee uu ka qayb galay olombikada waxaa loo dilay dad badan. weerarkaasi wuxuu ka dhacay magaalada munikh ee dalka jarmalka waxaana lagu dilay ciyaartooy israa'iili ah. waxay ka qayb galayeen ciyaarihii olombikada. dadkii ay u dileen aargoodasho ahaan waxaa ka mid ahaa waxay dileen dor basil al khubaysi sanadkii 1973 ayaa lagu dilay baariis. waxaa kaloo la dilay dor maxamed hashmari sanadkii 1972 ayaa lagu dilay baariis. xuseen al bashiir sanadkii 1973 ayaa lagu dilay khubrus oo ah meel ku dhow turkiga. ninka lagu magacaabo axmed bukhayki oo ahaa mudalib reer marocco ah waxaana ay ku qaldeen cali xasan saalex oo sanadkii 1973 bayruud lagu dilay. cali waxa uu ahaa hogaamiyihii weerarkii munikh ee la magacbaxay sebteembartii madoobeyd. wadiic xadaad waxa uu ka tirsanaa ururkii dib u xoreynta falastiin. waxa uu ka qayb qaatay afduubyo loo geystay diyaaradaha yuhuudda. waxaa lagu dilay dalka biljamka kadib markii ay muusaad sun ay ugu dartay jokolaato ama shukolaato oo aad u jeclaa. waxaana sidaa buuggiisa ku sheegay aharon kalayn oo ahaa sirdoonkii yahuudiga ahaa haatanse howlgabay. waxaana uu ka dambeeyey shirqoollo badan. muusaad waxay xoogga saartaa sidii ay u difaaci lahayd danaha israa'iil iyo dadka yahuudda ah oo bartilmaameed u ah dadyowga dunida. waxaana iminka madax u ah nin lagu magacaabo yosi cohen. marka aan ka gudubno labada sirdoon ee ugu caalamisan dunida ee kale ah israa'iil iyo bakistan, markaana aan eegno sidee buu ahaa jira sirdoonka soomaaliya iyo taariikh kooban. jenaraal jaamac maxamed khaalib oo mar soomaaliya ka noqday taliyaha ciidanka booliiska marna wasiir noqday ayaa ka mid ahaa dadkii buugaag uu qoray wax kaga sheegay 50 sano ka hor xilligii uu ka tirsanaa saraakiisha booliiska gaar ahaan dabagalka safaaradaha shisheeye ee ku sugan soomaaliya dhacdo uu u soo joogay. waxaana uu yidhi sidan: sanadkii 1964 waxaa jirtay in dagaallo ay dhex mareen soomaaliya iyo etoobiya. waxaa xilligaasi aan ahaa sargaal ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaana dabagalka safaaradaha shisheeye ee ku sugan soomaaliya. si gaar ahna waxa aan u xil saarnaa inaan isha ku hayo dhaqdhaqaaqa safaaradda etoobiya ee magaalada muqdisho ku taalay. haddaba waxaa jiray nin diblomaasi ahaa oo ka tirsanaa safaaradda etoobiya balse ahaa jaajuus sirdoonka etoobiya ka tirsan. waxaan ninkaasi aan ku daba jirnay dhaqdhaqaaqiisa. waxa uu lahaa balwad xagga la tumashada dumarka ah iyo khamriga oo uu aad u fuuqsan jiray ama uu cabi jiray. baararka ku yaalla magaalada muqdisho ee ajnebigu isugu imaan jireen ayuu soo aadi jiray. taasina waxay suurto gelisay inaan helno dadka uu la xiriiro. maalin maalmaha ka mid a ayaa waxaa dhacday in nin suxufi ama weriye ah wuxuu arkay ninkii diblomaasiga ahaa oo ka shaqaynaya safaaradda etoobiya balse ahaa jaajuus sirdoonkooda ka tirsan, isaga oo cabsan ama khamri cabay ama sarkhaansan oo dumar badan uu ku dhex jiro. dabadeedna sawir ayaan ka qaadnay. waxaan ku soo daabacnay wargeys af talyaani ah ku soo bixi jiray, taasoo fadeexad ku noqotay dowladda etoobiya. markuu xaalka halkaas uu marayo ayaa dowladda etoobiya waxay badashay ninkii fadeexadda ee u soo jiiday, waxayna beddelkiisa keentay mid adag oo maxruug ahaa, aadna u tababaran. dabadeedna waxaan naga istaagay xogtii aan heli jirnay. waxaan markaa kadib dhacday in dowladda soomaaliya gaar ahaana qaybtii aan ka tirsanaa ee dabagalka safaaradaha shisheeye ee ku sugan soomaaliya aynu go'aansannay inaannu dhegaysanno taleefanada safaaradda etoobiya. wasiirkii boostada ee isgaarsiinta soomaaliya ee xilligaas ayaan ka codsannay arrintaas in naloo suurtogeliyo. wasiirkii baqdin ayaa gashay. damaanad qaad adag kadib wuu naga yeelay. waxaa haddaba dhacday in toddobaad kadib markii aan bilownay dhegeysiga taleefanadii safaaradda etoobiya ee muqdisho ay ku lahayd, waxaan soo xirnay oo xabsiga aan u dhaadhicinay ilaa 7 sargaal oo soomaali ah kaana tirsanaa ciidanka booliiska, iyaga oo si qarsoodi ah ula shaqaynaya sirdoonka etoobiya, kuwaas oo bixinaya sirta qaranka soomaaliya. cashirka aan ka baran karna dhacdadan uu ka hadlay jenaraal jaamac maxamed khaalib waxa ay tahay sidii dowladihii soo maray dalka soomaaliya isha ay ugu hayn jireen inay isaga ilaaliyaan safaaradaha ajnebiga ay ku leeyihiin magaalada muqdisho, taas oo ku aadan inay helaan xogta qaranka soomaaliya.
gaar ahaanna waxay isha aada u saari jireen dalalka deriska la ah soomaaliya oo markaasi cadow loo arkayey. buugaag badan ayuu jenaraal jaamac maxamed qaalib uu qoray, waxaana ka mid a cost of dictatorship the Somali experience oo uu qoray sanadkii 1995. waxaa kaloo uu qoray buug la magacbaxay who is a terrorist first and second edition oo 2002 ahayd. waxaan ka soo xiganay qoraaladan cabdulaahi cabdi iyo sidoo kale zakariya yuusuf cigaal oo kala qoray labada warbixin ee ku saabsan sirdoonka Soomaaliya iyo siduu u shaqayn jiray iyo sirdoonka caalamka siduu u shaqaynayay. waxaan filayaa inaad wax badan ka kororsatay oo aad wax badan ogaatay taasoo ku aadan arrimaha sirdoonka. muuqaalka xiga intaan ku kulmi doona nabadgelyo. haddii ay tahay markii kugu horreysay subscribe dheh si aad u hesho muuqaalo kale oo aad wax badan ka faa'iidaysan doonto. mahadsanid.